ciidamada dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ayaa ku guuleystay in ay fashiliyaan qarax loo adeegsan lahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay wadada Maka al-Mukarrama. Gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ciidamada dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ay ku guuleysteen inay qarxiyaan iyadoo waxyeello aysan ka soo gaarin ciidamada iyo dadka rayidka ee ka agdhawaa goobta lagu fashiliyay qaraxaasi. Maxamed Garaar oo ah taliyaha saldhigga kilomitir 4 oo saxaafadda kula hadlay goobta ciidamada dowladda ay ku fashiliyeen qaraxaasi ayaa sheegay in waxyeello aysan ka soo gaarin dadka rayidka isagoona xusay in ay gacanta ku dhigeen ruuxii waday gaarigaasi iyo dad lagu tuunsan yahay in ay ku lug leeyihiin falkaasi. ciidamada amniga qaranka waxay ku guuleysteen booliiska iyo nabadgelyada iskaashanaya inay fashiliyaan qarax si aad loo soo aawilay ujeedadana ay ahayd in shacabka Soomaaliyeed wax waxyeeleeyo waana dareemi kartaa meesha uu yeelay iyo siyaabaha ay soo qorsheeyeen cadowga ay soo qorsheeyeen ilaahay baa ku mahadsan waxaana ku guuleystay ciidamada amniga oo iskaashanaya inay arrintaasi ninkii gaariga waday iyo dad la socodiyinta ay gacanta soo galaan ciidamada amniga qaranka wixii intaas daarna dib baan soo shiri doonaa xaaladana guul ay ku dhamaatay wax khasaaraha oo soo gaaray shacabka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida waxa ka jiro dadka tirsan suxufiyiinta ay wax soo gaareen waqtigii oo shaqadiisa guud jiray asigana waxa la caafimaad la siiyo wax kale dhibaato ma jiraan waana lagu guuleystay tirada waxa weeye kulli dib baan soo shiri doonaa laakiin tirada aan hayno waa tira hal ilaa afar dhaxayso. gudoomiyaha degmada Waaberi Axmed Mayre Makaraan oo sidoo kale warfidiyeenada kula hadlay halkaasi ayaa ugu horeyn u mahadceliyay ciidamada dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya sida ay uga go'an tahay inay ka hortagaan falalka ammaanka ka dhanka ah. laga raadiyo dadka Soomaaliyeed oo mutaasiinta ilaahay laga soo badbaadiyay alxamdulillah ilaahay baa mahad marka labaad ciidamadii maartay howlgalkaas oo fashiliyay barnaamijkooda ayaan maartay mahad celinayna adigu waa u jeedin meesha qaraxa oo ka dhacay aad iyo aad ayaan u waxna kuwaana oo kale inay maartay sidaan oo kale dhibaato u geystaan dad shacab meel ku ganacsaayaan ama sidaan dhibaato loogu geysto wax aad iyo aad aan waxnahay ciidamada howlgalkaas waxaan leenahay aad iyo aad inay ugu sii dadaalaan dadaalkooda oo sii wadaan ayaan u mahad celinayna haduu ilaahay yiraahdo. sidoo kale ciidamada dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo isagana la soo dhigay agagaarka isgooska kilomitir 4 inta badan qaraxyada ceenkan oo kale ah oo loo adeegsado gawaarida laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa caan waxa ku ah kooxda al-shabaab iyadoo ka soo horjeeda dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya iyo joogitaanka ciidamada AMISOM ee gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dhowr jeer hore ay u fuliyeen qaraxyo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. ciidamada dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa ay mararka qaar ku guuleystaan in ay fashiliyaan qaraxyada ceenkan oo kale inkastoo mararka qaarna aysan suuragelin inay ka hortagaan